بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك هدف أدبر السلام يا شركة إيجا وأن مرتي كسو لقصو وذا قيب قلنا وحنوف رجعين يقول يجبرنيمو وحلوبة هي هذا اللي يرى الصوماليات إن النقطة ضد في فرعون ورنتي أغانتو أي شقيسو ومحل يرى معمول كان لسه ينا ay ka qayb noqdaan boqolkiiba 80 waxa jooga waa dhalinyaro aqoon-yahana oo baarlamaankana lagu soo xulo aqoon iyo khibrad lagu soo xulo oo aanay dhabarka taabasho iyo reer hebel la oranin sababtoo ah hadhowto waxay noqon doontaa maxalliga waa meel shuruucdii lagu dajinaayo waa meel dadku ay maxalliga laga maamuli doono dawladda dhan laf dhabarkeedu baarlamaanku noqon doona marka dhalinyaro waxaan idinku boorinayaa inaad dhalinyaro aqoon-yahana keentaan doodihiinana waan daawadaa run ahaantii aad baan ugu farxay inkastoo ay tahay maalintii ugu horreysay maanta aan idinkala soo qayb galo waraysi idinkala soo qayb galo arrimo aad bay u fiican yihiin way socdaan dadku negotiations bay ku jiraan haddaad aragto dad wax negotiation galaya waa dad heshiisa dadkanina waa dad maaragtay ehela oo aan kala maarmi karin oo dhibaatoodo la soo dhibaateeyay waxaa loo baahan yahay marka in la isu dhimriyo xaquuqdoodana ay maxaa la yiraahdo ay sugaan hadda waqti kale aan joogno ay sugaan oo aanay ka tagin dhulkooda taaka kamid ah aanay ka tagin ay ku cadeeyaan dastuurkooda ku cadeeyaan meelaha xuduudahoodu jihin xuduuduhuna waxa weeye before English meeshaynu kala joognay in lagu cadeeyo macadka hadaf aad baan u salaamayaa waa macad ay wadaan dhalinyaro aqoon-yahana runtii ka soo baxay gobolka Sanaag dokumenti maaragtay Soomaali dhaxalgal u noqon kara markaad aragto doodahooda markaad aragto macluumaadka ay aruurinayaan waxa weeyaan waa asad weeyaan marka aad baan u salaamayaa